السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب أيال مالك الزوني ذيك شوكتان كسر هذا مانتا يو ورك جوا وين أفلام تنديك channel كانوا وحنسوق هذا دونا مانتا أخبارات كوجودن بيه هنديكا فيلم كته تنهاجي وصودا جي ديفغان أو وحقا يرو مقال هرنا على جسي داي فيلم كاسو أكتر بدن لقصاد دراي بجي وحقيني يا فيلم كيسي بقولات بوكيري دونايو حلقة بورسميت الله صار هذا بالعدي ولو حنسوق هذا دونا شاروغان يحاس كي سيد ما نكتر هذا بولود كأياك قريب دلاي دالا الشادا قابادا أي دالين أبيشك يا شواريا راي أو كان أقول حوي هاي ميتا بكشن أراديا قبدا وقبر كم إذا كوجو يا تضبطكو حفلة دي أي كسر ولا قيب قرن رجي ووينا بولود كهندية ولي واحد سوق هذا دونا فيلم كبوري ولا صوص ساري بورسمنتي دي سو ريشي كبوري يا إبراهيم هاشمي بايس هيو الله محد عبسي دريمي دون تمرك فيلم كداون يسو سادال بالله بحنا يا فيلم كسلمان قد إدي بنك تري وعلولي هاي وقراع دونا فيلمادي maalintii ugu horeysay loogu daawasho badnaa sida Tag Hofindistan iyo filmo kale oo waaweyn Salma Qafinkiisu uu ka yaabsan doona baa lagu leeyahay qodobada iyo kuwa kale ayaanu soo qaadan doonaa aflaanta ku saabsan warada saaxiib jeel qoystaan oo soo kala garay si aad wax waqti kasta iyo saacad kasta warka ugu dambeeyay aflaanta hindiga waayahay bal waxaanu eegi doonaa warkii maanta aflaanta Jay Devgan taageerayaashiisu ayaa sugaya goorta la soo saaray boorsamintada filimkiisa soo aadan ee Tanhaji oo Tanhaji ma garanaysaa waa filimkii boqolaad uu keenayo wax ka yar 30 sano filimadu jiray Jay Devgan waa filimkiisa boqolaad uu keenayo lagu leeyahay dhammaan aktarada bolodku indhahay cadeeyeen waa yaabeen warajay goormeed boqol gaartay Jay maxaa dhacay shimee boqol filim goormeed gaartayna Jay nin shaqo badan buu ahaa jacayl shactiro wax badan buu isku soo dardaray action ya من بوجين كسر بلاو فير كسر بلاو أكشن أوجي شعتيرو جولمالية كدر سينغامية أوجي أكشنا أجي ديفغان وقدام بينتي بقول فيلم بو سعدا تاغيراشي سن waxay sugayaan goorta la sii dayn doono boorsamintada filimka kanu ee lagu magacaabo Tanhaji hadda wuxuu ajay soo deeyay intaanu filimkan soo bixin yaani boorsamintadiisa aan la sii dayn maalmaha soo aadan ee foodan ugu soo haya wuxuu ajay sii deeyay muuqaal yar oo filimka ayuu sii deeyay laakiin boorsamintada filimku way dhiman tahay haddaba taageerayaashu ay sugayaan uu leeyahay oo ka dhararaya inay daawadaan boorsamintada filimkan baa lagu leeyahay maalinta talaada ayaa la sii daynaya Tanhaji wax badan baad ka arki doontaa filimka kan uu soo wada Ajay Devgan boorsamintadiisu isku diyaarina daawato maalin talaada wana filimkii boqolaad Ajay Devgan marka filim boqolaad uu yahay Ajay uu ku fareeraysanaya markuu filimadu bilaabay wuxuu soo galay isagoo laba mooto ku kor fariisay labada wadna kor saartay ilaa kuwii ugu dambeeyay hadda keenay hadda Tanhaji wuxuu doonay maadaama filimkii rekoorku uu yahay yaa boqolku ku gaaray wuxuu doonay inuu aad u shido doonay filimkan Ajay Devgan marka maalin talaada waxa lagu wadaa in la sii diyaar u leeyahay boorsamintada filimka kanu hadda muuqaal yar hordhac buu bartiisa soo dhigay laakiin boorsamintadu waa maalinta talaada waxay xitaa warar ku leeyihiin filimkan waxa lagu soo daray aktar qaar Ajay Devgan filimkan waxa la jilay lagu leeyahay xaaskiisa Kajol maadaama filim boqolaad uu yahay oo taariikh yahay xaajida safinka looga tagaya lagama tagi karo iyo hooyadii iyo gabadha kale u dhashay iyo ilmaha lagama tagi karo maadaama uu yahay filim taariikhi Ajay filimkan wuxuu yaa ku soo qoota daray macnaha ku soo qootay xaaskiisa Kajol filimka bayna qurxinaysaa waana aktarad weyn وانا حبيبتي دي دني حياتي دي قال سيدي دم ويان وعمامده يا مرك عمامده ku tuuray wuxuu leeyahay warwan kulo filimka taariikhiyan isla wada jilna malawdo inuu hambaliyeenaysay oo ilahayd war ma 3 sano wax ka yar ajeeyo 100 filim wadna waaleysa xabiibiyo ma naga daayaqay ya kabtan jaceelkaad noo gelinaysan marka Kajal xataa filimkan qayb ay ka taal leeyahay sidoo kale Saif Ali Khan ayaa filimkan ku jira Ajay filimkiisu shidanaya Ajay filimkiisu aad iyo aad buu diyaarinayaayo marka filimka Tanhaji waxaa lagu wadaa inuu soo baxo January 10 2020 bisha January ee soo 10keeda lagu waa lagu soo ayuu soo baxaya lagu bisha January 10 buu soo baxayo bal isku diyaar inaad daawato maalin talaada boorsamintada filimkan oo Hindi oo dhan aad iyo aad looga wada sugayo guriga Amitabh Bachchan waa la isugu tagay sababtee gabadhu awoog u yahay Aradiya ay relashideedu ku beegan tahay kabilaw goori oo xaaska Sharuqana illa Sharuqan dhamaan aktarada Bollywood ka ilmahoodu ayaa ka qayb galay xafladda dhalashada ee aktarka weyn ee Amitabh Bachchan gabadhu awoog u yahay ay iska dhaleen wiilkiisa Abhishek Bachchan iyo quruxdii hore dunidu Aishwarya Rai marka waa la isugu tagay halka kaayo dhamaan aktarada Bollywood kuba xafladda loogu wada yeeray Aradiya ayaa u dabaaldegaysa dhalashadeedo Aradi waxay noqotay
sideed sano jir bay noqotay oo wararidi way weynaatay bal fiiri sideed sano bay gaartay bal aradi ka waran aabeed bal fiiri marka uu la sawiran yahay aabeed hooyadeed markay la sawiran tahay awowgeed waa ka yaa Amitabh Bachchan hooyadeed maray la taagan tahay sideed sano jir bay noqotay lagu leeyahay guud ahaan xaflad weyn baa guriga loogu dhigay oo ay ka soo qayb galeen dhammaan aktarada Bollywoodka waa kaas arkaysaan rag weyn baa isugu tagay Shah Rukh Khan iyo xaaskiisa guuri xataa cunugiisa Abram buu soo waday waad arkaysaan iyo dhammaan aktarada kale Ritesh Demuqshi baan arkaya isaguna xaflad ka qayb galay Karan Johar bay isagu xataa ka qayb galay xafladda waa la isugu tagay meesha ka marka gaba aktarada weyn ee lagu magacaabo Aishwarya Rai xafladda dhalashada gabadheedu aad iyo aad baa la isugu tagayo dhammaan aktarada Bollywood ku dhan baa isugu tagay aradiyo hadda 8 jir noqotay waxa la dhalay sanadii 2011 baa la dhalay 4 sano kadib markay isguursadeen Aishwarya iyo Abhishek Bachchan 2007 dhawaana waxay familku u baxeen Aishwarya iyo gabadheedii ninkeeduba waxay dhawaan u baxeen Italia halkaas oo Aishwarya ugu dabaaldegaysay dhalashadeedii 46aad wararka lagu muhiimsan iyana aflaamdiga waxa kamid ah waxa la soo saaray ugu dambeyntii boorsamintada filimka Body waa filim u muuqda marka aad boorsamintidiisu aragto filim barbaarid ah filim يعني كيسبارة دل كوسابسن سامبل سجد وريجيا نكى ريشي هيا فينك كوتشرو وكوا عذرينيا لقطة أوسارة يعني نكى لنا إبراهيم هاشمي لقطة أوسارة يا إبراهيم هاشمي نواد قرنيسان لغلوخ يسيكون مقنا وكوجرانيك واللغلوخ بدأ أسوق مركو فيلم دو تشريو واحد شري واحد يبع عنه فينك كي يعد أحد يسوق قسمة يا ها أسوق واحد وكموين هذا أسوق وحويان هاي وارنيك والله غيابي إبراهيم هاشمي شغل كيسيكون مرنا فينك كايو واتكوذ تقارين marka Ibrahim Hashimi iyo Rishi Kapoor ayaa filimkan ku wada jira boorsamintidiisa filimku waa la soo saaray filimku wixii magaciisu waxa la yiraahdaa Body ayaa la yiraahdaa waa film la iskiisbaarayo oo lugta la isugu saari doono 13 December ayaa ay ahayd markii xilliga boorsamintada filimkan la sii deeyo kulay wada heli kartaa boorsamintada filimka Body marka Body waa film Rishi uu dib ugu soo laabtay Rishi bariyaan uu xanuunsanayo Mareykanka ayuu jiray halka uuna isaga soo yani kula dagaalaya xanuunka cudurka kansarka mar dhaweyd buu Hindiya ku soo laabtay muddo sanad ah uu ku maqnaa Mareykanka uuna kula yani u dagaalamay la dagaalamay xanuunka kansarka ugu dambeyntii uu soo laabtay Rishi haddana wuxuu dib ugu laabtay filimada oo wuxuu lahaa markii uu xagga jiray waan caajisay buu leeyahay filimada baan u xiisay balwad wayaan moogtay qof walba wuxuu markasta sameyn jiray buu u xiisayaa buu wax inuu qabto buu rabaanayaa marka waa ka Rishi Kapoor waa soo kacay Rishi's back filimka Body buu hor ka keenayaa isaga iyo Ibrahim Hashimi baana toora filimka Rish baana u muuqda inuu ninka kan baarid ku sameeynaya marka Body boorsamintiisa waa soo baxdayo waadna heli kartaa oo diyaar kugu tahay inaad ka hesho YouTube-ka Body trailerkiisa ugu dambeyntiina filimka isha lagu wada hayo waa filimka Salman Khan uu soo wado ee Dibangi 3 ugu dambeyntii Dibangi wixii aan warar badan ka soo gudbino heesa la qaaday codkiisu ku qaaday kambalo wuu yeelay la yiri la dhahay xagaa buu joogay ugu dambeyntii waxaad dhawaan daawan doontaa filimka lagu magacaabo Dibangi 3 oo uu ninka Burudhifa yiraahdo soo saaru ka yahay director ka yahay Burudhifa taqanan waa ninka boqorka loo aqooni jiray dansi ku khatar badna asagu waxa loo yaqaan Michael Jackson Hindiya loo yaqaan marka Dibangi waxaana tooro ka actor-ka weyn ee lagu magacaabo Salman Khan ugu dambeyntii filimkan maalmihii la sugay way gabagabo tahay filimkan waxa lagu leeyahay waxaa laga sii dayn doonaa maalinta uu soo baxayo shineemooyin badan oo Hindiya filimkan wuxuu ku baxayaa luqado kala duwan Tamil Telugu iyo Kannada maadaama filimkan uu qayb ka yahay actor-ka Sudeb oo ninka filimada Kannada atooraha ka ah ayaa filimkan laadarka ah waliba Salman Khan karkarinaya laba actor oo weyn filimkan jiraya mid ka midna waa laadiro filimka waxa ku jiraya ninka laadirka filimka waxa ku jiraya Sudeb Salman Khan uu ka soo horjeeda marka filimka waxa la rajeynaya uu leeyahay in laga sii daayo maalinta ugu horeysay in laga sii daayo shineemooyin badan taas oo ka badnaan doona filmadii Hindiya hore loogu keenay kuwii ugu dambeeyay aan soo qaadano Dibangi waxa uu leeyahay maadaama intaas luqadood lagu daawan doono waxa lagu leeyahay Dibangi 3 waxa laga sii deyn doonaa 5400 oo screen baa laga deyn doonaa oo wadanka Hindiya yani 5400 oo meel ama 5400 screen baa laga sii deyn doonaa yani shineemooyinka ayaa laga sii deyn doonaa waa tiro ka badan intii filimkii Take of Hindustan oo ay u jirayeen Amir Khan iyo Amitabh Bachchan filimka isla wadeen yani dagaalku waxa
Taco Fandistan ee labada actor weyn ay wadeen 5,000 screen baa laga daawaday maalintii ugu horeysay kan wuxuu noqon doonaa 5,400 screen buu noqon doonaa in laga daawado maalintii ugu horeeyay marka waxaa lagu leeyahay filimka uu soo wada Salman Khan maalintii ugu horeysay wuxuu garaaci doonaa inta meel ee laga daawan doono inta sheemo ee laga fiirsan doono inta tirada ugu badneed ee daawatay filimka Taco Fandistan oo ay wadeen Amir Khan iyo Amitabh Bachchan inta maalintaas laga daawaday dhalo ama shinimooyin laga daawaday in ka badan ayaa laga daawan doonaa filimka uu soo wado Master Rani oo khiyaalihii gada loo gelinayay dheelkii Salman Khan bad arki doontaa qayqayladiisii ninka ka waa nin khatar badan waska khusub dheel badan yahay isaga moogtahay cala ay xaal ugu dambeyntii Dibangi wuxuu soo baxayaa 20ka bishan aan ku guda jirno December buu soo baxaya oo 20ka maxaa kaga dhimaba faraha ku tirso maalmihii ugu dambeeyay Dibangi waa la gaaray inuu soo baxo ugu dambeyntii taan gobgeynaa maanta wararka ugu weynaa aflaamtiga sida ay nabadgelyo